بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدعوينها الجمهورية الفدرالية الصومالية مدن محمد عبد الله فرماجو دمان مرتي شرفتا كسو قيب قشي حفلدان هي دمان دولتها ددوينها الصوماليات يا ملاحظة الصومالية دمان تود وحن لها مركز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كجدال سيدال كان لوجا وذا دواجي ما أنت مالين آدي وين أو تاريخ الصومالية ملكر أو وين كجلي سوايه dadki iga horeeyo dhan ayaa ka hadlay waxaan rabaa inaan aad iyo aad ugu hambaliyeeyo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo oo aan waliba u duceyno ilaahay inuu xilka la garab galo waxaan sidoo kale aan aad iyo aad ku darayaa codkayga Soomaalidu dimuqraadiyiintii ugu horeeyay Afrika in ay ka mid yihiin oo ay yihiin dad ilaa bilowgiiba ilaa ay duruufuhu marka qaar kood u diidaan mooyaane markay fursad helaan in ay dhaqan ahaan dad dimuqraadi ah oo jecel in talada dalka iyo dadku mar walba ay ogolaanshiyaha iyo rabitaanka shacbiga codkooda la aqbala inay yihiin aad ba dad badan oo madaxdii halkan ka hadashay arinta aniga iigu bogaadsan laakiin waxaan rabaa ma ihi aniga ninkii soo bilaabay walaalkay Sheekh Shariif ayaa iga horeeyay oo sidaan oo kale 2012kii si degan oo macno weyn uu ku jiro oo sharaf ku jirta xilka iigu wareejiyay aniguna maanta sidoo kale ayaan aad ugu faraxsanahay in walaalkay maxamed cabdullaahi farmaajo uu joogo oo aan sidaas oo kale xilkii ugu wareejiyo salaanka gadaal iyo muxuu ahaay inta waxaan rabaa maanta maalintaas weyn oo taariikhda dadka Soomaaliyeed dhamaantood waa wax ay ku faani karaan Soomaalidu meel kastoo ay joogto maanta waa maalin ay ku faanayso oo dhammaan dadka Soomaaliyeedna taariikhdooda sida halkanba looga wada qiray loogana sheegay waxaan leeyahay taariikhdaas iyo dhaqanka sidaas Soomaaliya ha sii socdo hana waaran leeyahay dadka Soomaaliyeed codkooda iyo taladooda mar walba waa midka ugu mudan in la ixtiraamo oo la qadariyo haddii alla yiraahdo sidaas ayayna noqon doontaa Soomaaliya maanta meel kastoo ay joogaan waxaan leeyahay dhammaan hambali dadka Soomaaliyeed raalli ahaanshaha alla ka sokow waxa maanta meeshan ka dhacayahay waa wax ay dadka Soomaaliyeed dhamaantood ay ku lahaayeen qayb ka qaateen u soo dadaaleen raalli ka noqdeen waxa maanta halkan ka dhacay waa wada jir hawl loo soo wada qabtay sidoo kale maanta waxaan idinkula dardaarmayaa in si buuxda oo gabasho iyo kala har aan lahayn loo garab istaago madaxweynaha cusub in uu xilkiisa ku guuleysto iyo xukuumadda cusub ee dalka dhawaan loo dhisi doono haddii alla yiraahdo walaalayaal waaya aragnimadu waxayna tusee Soomaaliyada cusub ee aan hiigsanayno ee aan maanta ku taaganahay wadadii aan hiigsigaas quruxda badan hiigsanayna aan ku gaari lahayn meel ugama bannaana cambaarayn mucaaradad aflagaado madaxda iyo hay'adaha dawladda la afdee taas bedelkeedii dadka Soomaaliyeed waxaan leeyahay madaxda ha la taageero ha la waaniyo hana loo duuyo in ilaahay xilka uu la garab galo walaalayaal Soomaaliya qof waa ka weyn tahay qof aad necab tahay ama aad dibsanaysa awgeed Soomaaliya sumcadeeda iyo wajigeeda waxa ugu dawlad dhisidda Soomaaliya maanta waxay ugu baahi badan tahay waa muuqaal qurxoon in loo muujiyo dalka Soomaaliya laga muujiyo muuqaal qurxoon iyo in laga shaqeeyo xasilooni iyo deganaansho siyaasadeed dalka inay ka jirto la yareeyo ama la joojiyo isqabqabsiga iyo iska hor imaadka Soomaaliya waxba kuma soo kordhinayso mucaaradada iyo isqabqabsiga taas markaan leeyahay waxa ii weylisa marne dadka Soomaaliyeed kula talin maayo inay wax qaloocan iyo wax qaldan raalli ka noqdaan laakiin wixii naga qaldan hay'adaha dawladnimada dhaxdooda waa inaan ku saxnaa ee banaankooda inaan ku raadino saxid ma ahan taariikhdii way aragnimada Soomaaliya wadadii aan soo marnay waxayna tusay isku day kasta iyo wax kasta oo xandaabka dawladnimada banaankiisa lagu sameeyahay in aanay hirgelaynin haddii marka hore ay u muuqdaan xataa inay hirgelayaan ma waarayaan
laakiin wax kasta oo xayndaabka dawladnimada dhexdeeda lagu sameeyahay mar walba way waarayaan waana dhaqan galayaan dib u dhiska dawladnimada Soomaaliya iyo dib u soo kabashada dalka guud ahaan waa xaqiiqo dhab ah oo maanta aan la hor istaagi karin horeyna u socotay maanta waxba nama tarayso hebelaa iileh iyo koox hebelaa iileh iyo dal hebelaa iilaha dhibaatadan waxba nama tarayso wax kasta oo dalkan ka dhaca wanaagiisa iyo xumaantiisaba dadka Soomaaliyeed ayaa iska leh waa inaan wanaagiisa mar walba inaan lahaana aan ka shaqeyna haddii aan la yiraahdo waxa ka dhacaya dalkeenna waa dadkeenna waxa ay sameeyeen wixii hore u soo dhacayna mas'uuliyaddeeda waa inaan qaadnaa waxa wanaagga ee maanta socdana oo soo bilowday mar horene waa inaan ku naaloonnaa oo aan ku faannaa dhammaanteen sidaas daraaddeed caalamka annagoo kaashanayno annaguna iskaashanayno Soomaaliya waa inay isku tashataa oo ay hore u socotaa tajribada waxayna tusaysaa wadadii aan soo marnay burburkii dawladnimada ka sokow caalamku dawlad nooma dhisi karo waa la soo tijaabiyey waa suurtogeli weyday dawlad dhisideenna iyo dawlad wanaagsan iyo dawlad xooggan iyo dalkeenna oo baraaro gaaro waxaa mas'uuliyaddiisa dusha ay ka saaran tahay dadka Soomaaliyeed iyo dawladdooda waana inaan u wada istaagnaa arrintaas annagoo kaashanayna dabcan caalamka oo aan ka mid nahay haddaba anigoo ka faa'iidaysanaya munaasabadan weyn ee maanta waxaan u mahad celinayaa dhammaan madaxdii Soomaaliyeed ee ila soo shaqaysay muddadii 4 sano ahayd ee aan xilka dalka hayay sidoo kale waxaan u mahad celinayaa dhammaan madaxdii aan walaalaha iyo saaxiibada ahayn ee Soomaaliya soo garab istaagnaa muddadii dhibaatadu Soomaaliya ay ku jirto dhan waxaanan halkan uga codsanayaa mar kale inay sii garab taagnaadaan Soomaaliya iyo madaxda cusub ee maanta timiday si dalkeennu haddii alla yiraahdo oo hore ugu sii socdo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo xukuumadda cusub ee dhalan doonta haddii alla yiraahdo ayaguna waxaan kula dardaarmayaa koow joogtaynta iyo xoojinta wixii horay Soomaaliya ugu qabsoomay labo dhamaystirka wixii qabyo ka ah iyo saddex unkidda rajo cusub oo lagu dul dhiso wixii noo qabsoomay intaa kadib waxaan leeyahay Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya ha midowdo Soomaaliya dawladnimadeeda ha xoogaysato idinkuna noolaada wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh